أنا دبا يقول دعي deegaanka golweyn oo ka mid ah deegaanada gobolkan Shabeellaha Hoose halkaas ay ku nool yihiin bulsho Soomaaliyeed ayaa waxaa ku soo noqday tacadiyo ka baxsan bini'aadanimada dhacdadii u dambeysay ayaa lagu dirdilay hooyooyin Soomaaliyeed iyo caruurtooda ayadoona la jajabiyay albaabada guryaha ay ku noolaayeen xilliga falka oo ka dhacay deegaankaas ayaa la sheegay in ay markaasi ka maqnaayeen aabiyaashii guryahaasi markaasi mas'uulka ka ahaa ayna ku sugnaayeen xilligaasi hooyooyinka guriga iyo sidoo kale caruur waxaana la sheegay in dhibaatooyin aan loo meeldayn ay geysteen dabley hubaysan oo la aaminsan yahay inay ka tirsan yihiin maamulka deegaankaas qaar ka mid ah waxgaradka culimaadudiinka dhalinyarada deegaanka oo cod dheer warbaahinta la wadaagay ayaa dalbaday in dadkaas cadaalad la marsiyo isla markaana laga soo jawaabo dhanka kale waxaa ka warbixiyay falkaasi qaar ka mid ah hooyooyinkii goobjoog ahaa laguna kacay tacadiyadaasi waxa ayna dalbadeen in gurmad degdeg ah ay helaan isla markaana laga soo jawaabo dhibaatadii loo geystay intii walqax qabad korto oo galwiin u kulaadaaso oo shacabka galwiin degan oo xanuunsadaaso oo walaalis deganto oo waalidkeed degan oo awlaadis deganto waxaan rabnay arinta ina meel noo saar maanta waxaa la garaacay awlaadayno waxaa unina garaac habeenka ano waxaa la garaacay magaciisa wiilashan ku yaraa walan ogaayna iyo lagu gumaade beel waxaa dhici doonta ina anaga nin dilo cid nin soo oytin lahaayne haddii wala nin qabadaaw wax qabad ilaaha iska leey haddii wala nin qabadaaw waxaa rabnay arinta maanta foosxun nin qabadi inta aynu kufsane inta aynu dilne ina hadal noo gaaro wax qabad ilaaha iska leey ilaaha wax qabad kor ummadda walaalahayna ayaan oo reer galwiin ayaan ururka haweenka inaan soo daneeyaan cilka aqoon-yahanada inaan soo daneeyaan inaan soo dayaan walaalahan oo xamar rooga meel kasta rooga waxaan rabnaa inaan soo daneeyaan ilaah wal daneeyo falxumo ni qabadi nana garaaci nana tumi guryahan la badooji xoolahan hantida la qaadi nimankaan waraab jira ama beeraha jiraan waxaan ni gaaday inaan sinin dhibo beer waxa kuwaas anaga nimankaan in nana garaaco intii arintaas indhiine waxaan rabnaa inaan noo soo gaaro waxaan salaamayaa dadweynaha shacabka madaxda iyo salaamayaa waxaan salaamayaa ilma xal dhibaa nagu dhacay oo ilmaheyga gabdhaheyga iyo ani dhib loo geesti dhibkaasaa nagu dhacay cadaalad dalaa nagu dhacday guri waa la iga jijibiyey ilmaha waa la iga garaac gabdhaha waa la iga garaacay dhibkaasaa ku dhacay gurigin waa arki kortiin dhibki ku dhacay waa kaas salaam calaykum waa kan oo la jibiyey guriga oo la jabiyen waa kanaa guriga la iga jijibiyey waa kanaa cunug 17 jir ah iga maqan ilaahay maqaadiridiisa owlaa ilmaha gabdhaha dhan waa la iga dili waa la iga garaaci dhibaa igu dhacay ana dhibaa igu dhacay cadaalad dalaa igu dhacday cadaalad dalaa nagu dhacday anaga nin maanta noo soo garaacooy ma laha nin hadda maanta noo soo hadlooy ma laha dhibaa nagu dhacay xalay dhacdo ayaanay dhihisay alxamdulilah ilaahay waxaanoo badbaadiyey inaan miiti meelanka dhiina gurigeena waxaan soo weerareenaa nin wax hubaysanyaa waxaan suubiyanaa ilmihii iyo haweenadii dhammaan inaa ii jirdil ku suubiyaan ii tumaan oo lalayo aabi odagii guriga aabi sheega intaas ayaa ilmahooylin jirdili aadaa lin rafaadsadii marka dadka la tumi waxaa ka mid ayaa unugaan hadiyar waaku kaale inta unugaan la tumi baad wari iyo la tumi unugaan kii warku tumi on mas'uuliyadiisa mayl dhax kore seel ku weel abu osi auga wolki bayaa tusi auga wikin mokiyo won lam goy babshiido lam gurbadak dhow intaas dhacdo yaani dheesi si kastoo amuurta ahaataba dhacdadan deegaankan ka dhacday ayaa argagax ku beertay dadka shacabka ah ku nool deegaanka golweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose Cabdifataax Cali Cumar Tawakal shabakada wararka kulmiye gobolka Shabeellaha Hoose.